waa wax la beeray oo lagu shubayo dhulkii qofkii meeshuu marayay ayaa lagu shubaya meeshuu fariisanay ayaa lagu shubaya goobtiisa shaqada ayay ku shubayaan sixroolayaasha ciladan marka qofka markii uu ku istaago meeshii wax lagu shubay bulshooy bishaaro warheede waa maxay bishaaradu soo ma ogid in laga raystay xarumihii dadka badan laysku dhex cilaajinayay oo Dr. Axmed Cilaaj uu furay xarun dadka si gaargaar ah lagu daweeyo ilaan xaaji xasadkayga baad ahayd maxaad mar hore ii geen wayday xaruntaas sida gaarka ah dadka loogu daaweeyo waa adiga boqolka qof igu dhex darayeen haddaba ina keen aan booqanay Dr. Axmed Cilaaj laga raysay wixii hore Al-Hilaal Herbal Online waa xarun daawo dhireed oo leh goob jiifa bukaanku ku nasto ilaa uu ka bogsanayo laguna daaweyn sidoo kale Al-Hilaal Herbal Online waxay leedahay gargaarka degdega ah oo qofka xanuunsanaya gurigiisa lagu soo daaweyni Al-Hilaal Herbal Online waxa kale oo laga daweyn macaanka dhiigkarka rheumatismka maqaarka kaliya xanuunka massage toobin waafaqsan sunnada allergiga gastriga iyo daawo ka caawinaysa dhalmalaanta jinka iyo umusabiyaanka xarunta Al-Hilaal Herbal Online waxay ka daaweynaysaa riyooyinka baqdinta leh iyo qarowga ayada uu diyaar kugu yahay specialist Dr. Axmed Cilaaj daawadiisana lagu caafimaaday haddaba waxba yaan hadal kugu daalinine soo booqo xarunta Al-Hilaal Herbal Online oo ku taala xaafadda Islii Second Avenue gaar ahaan qaybta 7 Street wixii faafayntaasi dheer kala xiriir telefoon lambarka eber 7 eber 5 7 oo laga heli karo Dr. Axmed Cilaaj shifaa'un li ruuhi wa hablil matin الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد يقول الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة وقال تعالى وإذا مرضت فهو يشفين وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا أيها الإخوة والأخوات وبرنامج يدني إنه سعودي كلا سعودتين علاج السنة أنت كنت حني يا أنت هذا عصبة كسو دواء فيديو waxaan uga hadlayaa sixirka dhulka lagu shubo qofka meel loo dhigo lagu daadaadiyo meel sida hadda aad ka arkaysaan oo kale haweeneydaas sixirka ay meesha ku shubayso oo kale saameynta uu ku yeelanayo qofkaas iyo dhibaatada uu geysanayo xanuunadan kale caadiga ah dadka ku dhaco qaabka uu isugu ekaysiiyo baan rabaa dhowr qodob oo gaagaaban inaan ka ishaaro isla markaasna qaabkii qofkaas uu sameyn lahaana aan fariin yaroo kooban aan kusoo gabagabeeyo awalan walaalayaal ciddii hore nala socotay oo barnaamijyadeena nala socotay waxaan filayaa wax badan inay dhageysteen cudurradan aan ka hadlayno waa wax la beeray oo lagu shubayo dhulkii qofkii meeshuu marayay ayaa lagu shubaya meeshuu fariisanay ayaa lagu shubaya goobtiisa shaqada ayay ku shubayaan sixroolayaasha ciladan marka qofka markii uu ku istaago meeshii wax lagu shubay hadba lugtii markaas u horreyso ku istaagay ayuu ka soo bilaabayaa xanuunka ciribta iyo dhinaceeda dhanka faryarada dhanka xigta ayuu ka soo bilaabaya wuu ku soconayaa jilbaha boodooyinka dhabarka kaliyaha halkaas uu soo gudbaya ilaa marka dambe madaxa uu u gudbo madaxa markuu u gudbo qofkaas wuxuu saameyn ugu yeelanayaa waswaas fara badan buu yeelanayaa noloshiisii sidii hore mahana si ka bedelan ayuu qofkii noqonayaa sixirka marka meesha lagu daadiyey masti maahan qofkii markaa loogu talagalay inuu horey ka asiibo waxaa dhacaysa asbaabtii loogu talagalay mar inaysan dhicinba
oo qofkiiba xanuun uusan dareemin. waxaa dhacaysa qofkii inuu saameeyey oo xanuunkii uu saameeyey laakiin ujeedadii laga lahaa aanan laga gaarin. haddii la rabay in la waalo ma waalanin, hadduu rabay inuu hantidiisa ay burburto ma burburin, haddii la rabay inuu maaragtay islaantii furo ma furin. laakiin muxuu dareemayaa? wuxuu dareemayaa xanuun jirka ah. isbitaal buu aadayaa, xaggu ka dhacayaa, qur-aan haddii lagu akriyo waxba ma dareemayo, laakiin muxuu dareemayaa? xanuun buu dareemayaa. system buu u baahanya marka, system qoto dheer ayuu u baahanya lala dhanaaniyo xanuunkaas. wuxuu isu bedelayaa nerva xanuun, dhabar xanuun, waxyaabahaasuu isu bedelaya. ciladaasoo kale qofka inta badan markay isku arko waxaan kula talinayaa marka, dabcan dadkeena Soomaaliyeed inta badan markay xanuun isku arkaan sidiisaba waxay aadaan oy awal ka dhigaan isbitaal iyo dhakhtar. kaba dhigba inaad aaday, anuu ha aadin kuma lihi, kaana celin maayo. maxaa yeelay waan ogahay qofka markuu xanuunsado inuu isbitaal ku hormaro, balse waxaan kuu sheegayaa oon kuula dardaarmayaa si nasteexa leh, xanuun haddaad isku aragto inaad awalan qur-aanka ku hormarto, qur-aanka aada isku daaweyso, aada u yeerato markaas wadaaddo aad ku kalsoon tahay, gurigaaga aada isku qur-aan saarto ama xarumaha cilaashka, ama aada raadiso qof special ku ah xanuunkan ku haya. laakiin haddii ay dhacdo inaad ku hormartay isbitaal isla markaasna lagu yiri wax xanuun ah kuma aragno, usoo laaba markaas qaabkan kale ee lagu daaweynayo, adiga oo si special isu daaweynayo. sometimes waxaa dhacda inaadan horey waxba kaaga qaylinin, oo markii qur-aanka lagugu akriyey wixii durba aysan kaa hadlin. ha degdegin marka, cajal ha degdegin. bini aadamka waxaa laga abuuray wax la yihahdo deg deg. u kaadso, waqti sii, jaanis sii. hal maalin baad wadaaddo u yeertay, waxba igama dhaxadlin, waxba igama dhaxadlin. waa waxa ugu badan ee dadka bulshada aad ku arkaysid dhaqanka noocaas. qur-aan baa lagu akriyay, de anigu waxba ma qabo, muxuu iga dhexadli waaye? qur-aan baa lagu akriyay, muxuu iga dhexadli waaye? wixii may tartiibso, waqti sii, waqti sii. hana tamaninin oo ha raadinin durba in lagaa dhex qayliyo. wakafa allahu lmu'miniina alqitaal. waxaaba dhici karta xanuunka ku hayay raggaas meesha soo fariistay ilaahay idinkiisa iyo kitaabka ilaahay subxaanahu watacaala inuu bahalkiiba kaa cararay, isagoon qaylinin, isagoon wax kala sheegin, inuu iska tegay, inuu dhuuntay. siyaabo badan buu ku aamusi karaa, inuu adkaysanayo oo isxajinayo, siyaabo badan ayuu ku aamusnaan karaa. marka waxaad samaysaa ciladaasi waqti yarsi, waqti kooban, aada ha u degdegi. kadib ilahay waxaan rajaynaynaa inuu kugu caafiyo qur-aankaas. xijaamo samee, stop. waa qofkii qaab neerfa ahaan xanuunka u noqdo, oo inta badan waxaas la daadiya dhulka lagu daadinayo kale ay isu bedeleen neerfo iyo xanuun jirka ah. toobinku waa shay muhiim ah. daawadan ilaahay subxaanahu watacaala inoo soo dejiyey ee daawo dhireedka ah, ayaguna ka qaado qof aada u yaqaano. sidan marka walaalayaal, waxaan idin dardaarmayaa caafimaad iyo cimri dheer iyo cibaadadsan. mar walbo waxaan idinla garab taagannahay inaanu fariimahan gaagaaban idinla wadaagno, maxaa yeelay dad badan oo fariimahani ay gaareen kuna faa'iiday ayaa jira. sidaa awgeed
aad baad mahadsantii wabilaahi towfiiq wassalaamu calaykum. bulshooy bishaaro bishaaro war heedhe waa maxay bishaaradu? soo ma ogid in laga raystay xarumihii dadka badan laysku dhex cilaajinayay oo Dr. Axmed Cilaaj uu furay xarun dadka si gaargaar ah lagu daweeyo. ilaan xaaji xasadkayga baad ahayd, maxaad mar hore ii geen wayday xaruntaas sida gaarka ah dadka loogu daaweeyo? waa adiga boqolka qof igu dhex darayeen. haddaba ina keen aan booqanay Dr. Axmed Cilaaj. laga raysay wixii hore. Al-Hilaal Herbal Online waa xarun daawo dhireed oo leh goob jiif ah, bukaanku ku nasto ilaa uu ka bogsanayo laguna daaweyn. sidoo kale Al-Hilaal Herbal Online waxay leedahay gargaarka degdega ah oo qofka xanuunsanaya gurigiisa lagu soo daaweyni. Al-Hilaal Herbal Online waxaa kaloo laga daweyn macaanka dhiigkarka rheumatismka maqaarka kiliya xanuunka masaaj toobin waafaqsan sunnada allergiga gastriga iyo daawo ka caawinaysa dhalmalaanta jinka iyo umusabiyaanka. xarunta Al-Hilaal Herbal Online waxay ka daaweynaysaa riyooyinka baqdinta leh iyo qarowga ayada uu diyaar kugu yahay specialist Dr. Axmed Cilaad daawadiisana lagu caafimaaday. haddaba waxba yaan hadal kugu daalinine soo booqo xarunta Al-Hilaal Herbal Online oo ku taala xaafadda Islii Second Avenue gaar ahaan qaybta 7 Street. wixii faafayntaasi dheer kala xiriir telefoon lambarka eber 7 eber 5 7 oo laga heli karo Dr. Axmed Cilaaj. شفاء لروحي وحبل المتين